السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وضع سلامة يا بيلا شوكتاني وقتها كل شرطين بأنتينا سلام شرنتينا أنا سلام شرنا دو سوقنا لما بدي بيرك اسكو قال waxaanu soo galay galabta anigoo iskaba mashquulsanayo waqtigaan hayni baan waxa dhageystay mid aan isku kala saarno la oran jiray xasan maxamed cali gaafaadhiga malaa u taqaanaana gaafaadhiga waxaan ku leeyahay weliba waxaan idinka codsanayaa in intiina garanaysaa daaqadda uga turtaan ninka kula hadlaya waa cabdishootale oo sheekh bashiir 4 sannadood bay isku kala saaydeena sekondariga dugsiga sare waxaan dhegeysanaya adigoo shalayto iska baraaciyey waraaracdaa haya oo yidhi warniga u duulku dee ummadda kaasi maxaa u malaynaysaa raggii maadigaa ka hadhay kuwa hormoodka u yahay maxaa u malaynaysaa de waa kaa soo maydhan ya iyo calima reexaanka iyo ya waa saalax oo ah naanistiisu waa saalax xerakeen saalax xerakeenka ah bakti dhiga weyn ka taageere cabdalla korka waa daydega ahee maxkamada hore loogu xiray xukunkii maamulkii axmed maxamed siilaayo oo ninka keliya maxkamadda soo taagay haddana reer hebel lagu keenay meesha waxaan leeyahay gaafaadhi andib ugu soo noqday gaafaadhio waxaa tahay waa la yaqaanaa inakoo isgaranaysa wanaagsan ban isu garanayno inoo kala sheekeyn maayo adoo ad garanaysa anoo ku garanaya ummaddii aynu isku kala hayna weyna ogtay waxaynu ahayn waxaad tidhi 26 Disembar adiga maxaa tahay adigu imika askarigii raggii madiga ka hadhiya geeya shaaximunta daba fadhida xilkoodu wuu dhammaaday wax laalo xatiin ma leh nothing zero afka intaad kala qaaday dee afkan qofku u doloolo waa u bannaan yahayba uu iska hadlay wax doonaaba ku hadlayaa waa tidhi 26 Disembar bal hadda waxaad meel isla soo taagtay dib isugu qorta ma is dhegeysataan adigiyo kaas hoos fadhida iyo inta meesha uu kursiga isugu ruxuu golaha jaariyadaha aad ka mid tahay alaa wasiiriya waxbaa dadku malaa ku sheegaane golaha jaariyadihiisa u adeegay kala qaybinta iyo kala qoqobka beelaha iyo uu u dirtay 26 Disembar marka ay gaadho urur baad noqonaysaa xirsi baa lagu qorayaa oo adigu meesha waad ka baxsa adigu maxaa tahay imika waxaa ka baxayaa ma jiraan cabdiraxmaanna ka bixi maayo xirsina markiisii horeba guddoomiye ahaa waa sidii buu guddoomiye u ahaanayaa ka ku xiga cabdiraxmaan cirana waa isaga naftu ha kaa baxday adiga iyo geeya shaaximanta uu askarigu kolba mid dhabarka taabanayo odhanaya adigaan kaa dhigayaa meel isugu baydha ya ileen doqoniqiiqima kacda daabankay mirmiirsaaba layidhi halkaasunba kolba la odhanayaa dee loo soo dhibay la odhanayaa sidaa dheh maxay yihin iminka 13 Disembar baa maamul somaliland leedahay wax lagu sheego dee weliba ilan maamul muu ahayn waxana daba fadhidaane maaha iminku xaafadaha wareegaya kolba maqaaxi fadhiisanaya maskaxda ku jirtaa waata dooxaad faraska kusoo marsay daantii garxashis baan maraya oo faras ya intuu hareerahana ciidanka ku dayraa ilaahay unbaa ogaa ya waa maskaxda askariga kaasaa dad u hormood oo weliba u doodayaan ya kaa iyo geeya shaaximan oo halkaas la soo taaga ciidan cabdiraxmaan watay oo xamar ka yimi oo lacagtaasi walmadaas ilaah baan ku dhaarshay bal bakti dhegawaane kobla 4 wada meel ka soo kiciya taala loo dhashay wallaahi bilaahi tullah waxyaabaha la yaaba taala loo si ashxumada dee loo dhisaya iyo kala qoqobka soo maaha beelaha burcu kala qoqobi jirayo burcana waa tii finish isaga iyo geeya shaaximanayo ilaahay waa kii shuush ka qaado shuushow bax bay yidhaaheen meel baa lagaaga soo wada jeedaa gaafaadhina waxaa leeyahay allaalo xataa ha iska yar waa kii uu ku sheegay buur madow dowla aabihii isagoo burca joogo xoola haysto shaqaysto oo caynkana waa kafanta loo ururinayo oo gaajo u dhinta cidda kale aad waxtaraysaa waa tihi gobolladaas ka timi weli wax ma u qabato ka soo diraya
وسيقو قبا كويس واكا كجيحay saddexda hare waaweyn gabili ka jeexay adiga halkaad ka timi oon baa laayay hargeysa berigeeda marka laga bilaabo hargeysa niyu hargeysa marka laga bilaabo ilaa halka ugu dambaysa xuduudda ingiriisku gumaysan jirtay imika somaliland ma jirtay ceel qura ma ka qoda caafimaad baad hayda wata lagu baktay aye maxaad ka samaysay ya markaasaad weliba isla soo taagaysaa meel adduunyadani liitow aayala ah ya adduunyo marka kaa iyo ku hor galaan bay kugu daranta ya weliba wax isla soo toogay wax ismoodaya xaafaduhu xalayta ku wareegaya shalayto ilaa kolba baqaya ya maamuus iyo kaah iyo maqaaxyaha soo fadhiisan wuxuu tegi kari waaye waan kuu sheegayaa haddii waan idiin sheegayaa dadka xumaddu layso carruur yaryar buu xidhayaa xin waa reer hebel baa loo xidhayaa wax kale maaha maxaa runta laygu sheegaya bal ummadda meeshaa isugu timi hadda eega hadda liiskii qoobaluudkana waa idinka arkayay jaamacadda dhaqanbiiska dadkii runta ka sheeganaya wuxuu leeyihin cabdimaalka coldoon iyo usiga gaasoo midhan baa intuu meel ummad ya kii bahalkiina saacad cali shirana waa kii lahaa 45 milyan baa nagu taagan hadda xooluhu ummadda waa la cuno way isku dhalaashay way isku dhalaashay baqdin uu ka qabo waddani baa ku soo baxaya bal ururada kuwii soo kala saarsaareen weliba aan dee sax kuwa laleeyahay waxba lasoo saareen waa in la watay ay yidhaaheen taasaa soo baxday mid kale laga daba tuura waa maaha haddee wax soo baxay maaha waxaa la yidhi daa'uud iyo siciid alla kala qabiyo daa'uudna mid ha loo geeyo labadii siciid baa finish ah rajo kii daamir iyo rajada ahaa iyo doctor khalkhal dadkii uu soo karaystay baa la arkay inaan cid la socotaa jirin markaasaa la yidhi daawudna wuu ka sii daran yahay haddaba wallahi inaan naxariis diinahay deegaanadooda inaan lagu qabanayn ibraahim mahdi buubaan waxaa leeyahay raganimo meel cidhiiriya way ku jirtaa wax allaale maanta maalinuu garxajis ka siman yahay ma jirto gawdhi siyaasad ba lagaaga soo daba tuuro siyaasadde maahe waa kala qaybin ba lagagu soo turo shaqooyinkii qaar hore ku saaqideen ee kala qoqobka ahaa baa lagu soo adeegsaday adna waad sogtay adna waad sisii ogtay inaan salexda wixii ka dhacay waad iga arkaayo halkaasaad ka lahayd deegaankayga ninkay diidaya doorasho ka dhacaysaa ma jirto deegaan aad leedahayna ma jirto adiga noocaagaas oo kale adiga iyo noocaagaasa iyo suldaan habaarka iyo qaar kaloo badan in mursi madoobe iyo deegaan aad leedihiin ma jirto dad baa leh isxaaq iyo ciidagalaa leh oo deegaano garxajis ugaasho iyo madax dhaqameeddaa ka taliya ayay kaana xukumaan cid ka foodaysaana ma jirto xitaa haddaa sanaaduuqda keenaan wallahi halkaasay dib ugala noqonaysaa cid kuyuu u gelaysaa dee suldaan habaar iyo in mursin madoobe iyo kan kamaradihii lagaga carare anna way kan iyo bakti dhegaweyn iyo doctor khalkhal iyo daamirka iyo ya deegaana cidday u geynayaan wallahi waxa shaataa u foodeyna deegaan wax lagaga ridayaa inaana jirin ha wareerina ya ha wareerina wadanina wuu soo baxaya cabdiraxmaan cirana gaafaadhiow waa madaxweynaha nex madaxweyneha wuxuu ka baqayaa kolba dabada warwareejinaya hersina dee hadalkiisoo dawaaba ku waalida ka qaaday oo halka ka lahaa xisbi aan waxba ku darsanin guddoomiyihii hore ninaan waxba ku darsan
lugooyo maya wax kale aan ula jeedin balba isaga u dooraya maxaa ka galay bisad meel marasa haddii doona laga dhiganayaa dan ka dhiganayaa waaba xirsiye nin rag oo la yaqaano dad hortii ku arkay waa jinarag dad hortii buu ka arkay waxaa tahay oo lala yaab baraahimkaa dadkii usoo noqda waxaan ku soo xidhay hadalkayga kaagaa faadhi la yidhaahow waxaan ku leeyahay xukumaad hadlinaya dee afku waa kuu dilaacsan yahay iska hadal qof afkan uu dilaacsan yahay dee waa iska hadlayaa mar haddaan balaster lagaaga dhijinayn ya hortaa bannaan laguma dhaamay dhaqaaq dadka imika waxa horboodaya oo waxaa soo midhane rabbi khalaqu dalaq midho baa horboodaye dee geel duq baa loo tumaa baa la yidhi geel duq baa loo tumaa ka arkisaan baa idin horboodaya labada idin horboodaya waa geeyo shaaximanayo iyo raggii maadigaa ka hadhay ya geeyo iyo raggii maadigaa ka hadhay baa idin horboodaya awr waliba awrku dhalu aaranki yahay ka meesha ku keena dee aarankiisa tahay marka lagula yaabi maayo